waxaa maanta magaalada Boorama si ballaaran loogu soo dhaweeyay ugaaska beelaha gobolada Awdal Salal Gabiley dalka Djibouti Ethiopia iyo Somaliland ugaas Cabdirashiid ugaas Roble ugaas Doodi kaasi oo ka soo laabtay safar dhowr maalmood qaatay oo uu ku tagay xeebaha gobolada Awdal iyo Salal ugaaska iyo wafdiga salaadiinta ah ee la socotay markii ay soo gaadheen magaalada Boorama waxa wadooyinka hareerahooda tubnaa dadweyne aad u tiro badan oo lulayay caleemo qoyan isla mar sacab iyo mashxarad ku soo dhaweynayay ugaaska waxa kale oo magaalada Boorama bartamaheeda iyo koonayaasheeda lagu arkayay baabuur aad u tiro badan oo ka qayb qaadanaysa soo dhaweynta ugaaska ugaasku mar uu la hadlayay dadweyne aad u tiro badan oo ku soo ururay barxadda garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorama ayuu halkaasi uga duceeyay dadweynahaasi macluumaadka kale ee intan dheer ee safarka ugaaska ku saabsan isla markaana uu telefishinka Hoon Cable TV helayo ayaa waxa ay tilmaamayaan in ugaasku uu kormeerkiisaasi qaatay muddada dhowr cishada ah uu ku soo maray deegaanada buuraleyda iyo xeebaha ah ee gobolada Awdal iyo Salal ugaasku waxa uu soo maray magaalooyinka Saylac iyo Lugaya halkaasi oo dadweyne tiro badan oo uu kula kulmay ugu duceeyay meelaha uu khudbadaha dhaxalgalka ah ugaasku ka jeediyay ayaa waxa kamid ahayd magaalada Quljeednet كن سجال بقول يشوي سديتك يا أحمد علي وعلى مسارين مكوا ريال آدي عاد من الحياة إلهي الحمد فرفيا ما بقول سيا إلهي تقبلنا الله مغفر أنا جابنا وسمي في الله مغفر إلهي يقبلنا الله مغفر إلهي مغفر فقرنا الله نسيا يا الله نسيا عبد الله علي يوسف هون كابل تي في مقالة بورما.